shaqeynayo waxaa jirta sidii laga warhayo oo horena aan uga soo hadalnay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qoysaska qabsada waxay ka bilaabataa sida caruurta dhaqan wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan loogu samayn lahaa ay ka bilaabataa marka ma isleedahay waxaa jira hanaan haddii aad raacdo qoysku ku guulaysan lahaa ها وجرا waxaan oran karaa oo halkan ka sheegi karaa ilaa 9 qodob oo aan isleeyahay haddii qoysku raaco wala guulaysanaya oo caruurtuna waa guulaysanaysaa qoyskuna waa guulaysanaya tusaale ahaan barbaarinta caruurtu waxay ka bilaabantaa xilliga qofku dhasho xilliga qofku dhasho ayay tahay inaad si wanaagsan ilmaha wax u barto tusaale ahaan marka ilmuhu dhasho waxyaabaha markiiba ilmaha la baro waxaa ka mid ah inaad caanaha oo kale markaad siinayso inaad waqti ku siiso inaanad mar kasta afka isaga gelin macnaha qofka aad barto xilliga uu caanaha cabo hadduu imika caana cabo oo dabeetana ooyo oo haddana markiiba caanaha afka u gelina misaasada afka u geliso ama naaska afka u geliso waxa way khalad baad samaysay ilmihiina khalad baad ku tarbiyadeynaysaa laakiin xilli go'an oo qiyaasan oo ku habboon horta caanaha sii koow laba habarin gacanta inaad mar walba halkaa ku hayso ilmaha waayo waxa way shaqaad yeelanaysaa waxbaad qabanaysaa hawlihii guriga oo dhan baa ku sugaya qofka waxaad bartaa inuu halkiisa gogashiisa jiifo oo halkaa marka uu ooyo adigoon gacanta ku qabanaad halkaa ka aamusiiso uga sheekayso ya marka uu ooyo xataa aad halkaa uga sheekayso in waxyaabo yaroo ku aad agdhigdhigto magaranaysa marka dambe wuu la qabsanaya xitaa adiga oo matalan hooye adoo wax karinaya buu ooyey ha soo qaadin bar xitaa adoo kijada jooga inaad halkaa kala sheekaysato si markuu ooyo markaad halkaa uga dhawaaqdeed kala hadasho oohinta u joojiyo oo dabeetana halkaa kaa dhegaysto dabeetana marka dambe isaga isku mashquulaya cabaar ka bacdi ba haddana laga yaabay ku adigu waxyaabo noocaas ku soo tarbiyadee mar labaadka qodobka labaad markaad sidaa qofka ilaa halkaa ugu soo tarbiyad gacantii gogashiisii isaga isbarto caanihiisii iyo xilligaad siinaysa iyo waxaasoo dhan wax nadaamsan ka soo wada dhigto ee halkaa tarbiyaddu ka soo bilaabanto markaaba xeerka aad ku shaqaynayso ayuu ilmuhu la qabsanaya marka waxa weeyaan mar hadduu ilmuhu xeerkii la qabsadana waa isla qabsateen laakiin dad markaaba xeer la'aan ah ku bilowdaan waxa way xeer la'aan baa ku soconaysaa qodob mar labaadka waa waqtiga ilmuhu gurguuradka bilaabo ayuu isna markaa u baahan yahay xeer labaad u dejiso markaasoo kale waa inaad waxa aad bartaa waxa loo diido waxa yeelmada la yiraahdo waxa diidmada la yiraahdo waa inuu ilmuhu kala barto oo tusaale ahaan qof badan ilmaha ha noqonin qof mar cadhooda oo qaylo badan mar maxaan idhahdaa naxariis badan mar wuxuu imika u diida haddana isla markiiba wixii u yeela uu kugu khalkhalaya ilmuhu dabeedna kugu soo hagaaga garan maayo dabeetana marka dambe isaga laftiisuna sidaa aad ula dhaqantayba kuula dhaqmaya wax xeera kuu samayn maayo saacaddu doono uu kugu bilaabaya inuu kugu qayliyo ma garanaysaa wuu ku wareynaya marka waxaad tidhaahdaa diiday waa inay diiday hataa waa inuu u bartaa diiday waxaad tidhaahdaa ha taabanin jooji waa inuu matalan meel layd hadduu isla taabo aad tidhaha ha taaban waa inuu sidaa u bartaa dabeetana maalinta dambe ma taabanayo sidaa kuwad bar sheekada iyo ciyaarta xilligaa markay gaadho inaad u sheekayso bar mar inaad la ciyaarto bar waxyaabahaasoo kale markaasoo kale isagana ma garanaysaa ku tarbiyadee ka baro buugga jidka qoyska toosinta waalidka barbaarinta caruurta tiirarka farxadda tiirarka khilaafka tiirarka xalka iyo waxyaalo kaloo badan haddaba buugga jidka qoyska gurigaaga ha yaallo buugga jidka qoyska waxa kale oo uu maskaxda bulshada ka dhiqi doonaa mala awaalo badan oo la rumaystay oo rag iyo dumarba ku jira oo halis ku haya in qoysku
jidka toosan qaado ama ku noolaado farxad iyo is-aamin. wixii oori wareertiyo odayaashii asqoobay markay buuggan arkaan asraarkii dhex yeeliyo umalkii kala weeshay haddii eebba idmo islaantuu ka bogsiinoo odayguu ka bogsiinoo ubadkuu ka bogsiine aqalkaaga ha yaallo buugga jidka qoyska haddaba wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir taleefanada shaashada kaga muuqda.